dowladda Soomaaliya boqolkiiba 90 waxa ay siinaysaa wax soo saarka shidaalka dalka Turkiga waa been anaan ku dhahay qof aniga iga dambeeyana ha ka wareysan si cada ku leeyahay wali waxa ku tusi doona cadeymo waxa laga yaabaa dad danag siyaasadeed kale ama sidoo kale dalal shisheeye u adeegaya inay heshiiskan suurad xumeynayaan laakiin qof aniga iga dambeeya ha wareysanin anaa ku tusaya cadeymo rasmi ah taasoo ku sheegaysa in boqolkiiba 90 wax saami ah aan la sii doonin dalka Turkiga yani adiga waxa laga yaabaa inaad tiraahdo ururqada waaba ku qoran tahay waa tanay xagee adu ka keen kartaa cadeymaha kale ana ku keenay kaalay si aan isku la fahanno qodobada iyo sidoo kale cadeymaha ku tusi doono bal marka hore horta aan isla ogaano waxa la yiraahdo heshiiska ama wax soo saarka shidaalku meeqa waji ayuu maraa yani waxa la yiraahdo phaseska ama wajiyada uu maro ama heshiisyada loo saxiixo waa imisa okay sida caadiga 5 process ama 5 phase ayuu maraa marka wadan rabo in shidaal loo soo saaro waa kan koowaad waxa la yiraahdaa exploration phase oo ah phase-ka koowaad ama sidoo kale wajiga koowaad ee sahminta wajigaas wuxuu qaataa qiyaastii 3 ilaa iyo 5 sano u fiirso ujeedadiisuna waxa weeye in la sahmiyo meelaha laga heli karo shidaalka la qodo ceelal tijaabo ah la ogaado in dalkan uu shidaal soo saari karo qodobka xiga waxa waaye appraisal phase oo ah qiimeyn wuxuu qaataa ilaa 2 sano ujeedkiisuna waxa weeye in la ogaado meelaha shidaalku ku badan yahay iyo goobaha muhiimka ah ee shidaalka lagu qodi karo dalkii oo dhan shidaalka waa laga helay waxa la yiraahdaa meel hebel waa laga helay waa in la kala xusho yani ma galmudug shidaal badan ma Jubbaland ma Puntland yani in la ogaado meesha ugu muhiimsan shidaalka ugu badan ka soo bixi karo tan xigta waxa waaye waxa la yiraahdo development oo ah in la dhiso ceelasha shidaalka oo tayo leh yani goobihii lagu sameeyay indhaynta iyo qiimeynta in laga dhiso ceelal shidaal 3 ilaa iyaduna 5 sano ayay qaadataa waqtigaas waxa ku xiga waxa la yiraahdo productionka ama drillingka ama in la qodo yani in la qodo la soo saaro shidaalkii ama lagu nacfiyo hada si kale ku yiraahdo yani shidaalkii la soo saaro la isticmaalo la suuq geeyo la gado ayadana waxay qaataa 20 ilaa 30 sano yani ceelkaas waxa lagu nacfin karaa 30 sano 40 sano hadba sidoo u kala tayo badan yahay kan ugu dambeeya waxa waaye abandonment ama in la burburiyo ceelkii yani ceelkii 30 sano lagu nacfinayay wuu guray ama wuu dhamaaday waa la burburinaya asaga dhan meeshii waa la nadiifinaya deegaankii waa la nadiifinaya nadiif baa laga dhigaya shantaas marxaladood ayaa horta la marsiyaa marka la rabo in ceel loo qodo wadan shantoodana mid kasta heshiis cusub ayaa la galaa mid kasta heshiis mid kasta ayna waqti u leeyahay hadaba heshiiskan Soomaaliya ee la gashay dalka Turkiga waa kan koowaad oo waa heshiiska sahminta shidaalka waxa ku sheegay qodobka koowaad oo la yiraahdo exploration phase-ka ama sahmintu inuu qaato 3 ilaa 5 sano si aad u ogaatid heshiiskaasi inuu yahana soo fiiri qodobka 1.1 oo lagu qeexayo shaqooyinka la qabanayo waxyaalaha ay kaliyiin iyo sidoo kale to nooca heshiisku uu yahay warqadaas marka akhriso waxa ogaanaysaa heshiiskan inuu yahay heshiis sahmin yani waa waadax taas waa dood kama taagna hadaba heshiiskan waxa dood ka dhalatay qodobka 4.7 oo ah soo celinta qarashaadka yani heshiiskan waxa lagu sheegay in ugu badnaan boqolkiiba 90 ay shirkadda shidaalka qodaysa qaadan karto waxyaalaha ka soo baxa yani wax soo saarka dadka marka waxa la yiri waaw shidaalkii la qaadanaya boqolkiiba 5 war ku sheego waxa la maraya waxa la yiraahdo sahmin waa sax qodobkan 4.7 boqolkiiba 90 ay qaadanaysaa shirkadda shidaalka qodaysa ama sahminaysa hada si kale ku yiraahdo sababtuna waa inay ku dabarto qarashaadka ku baxaya inta sahminta la wado iyo sidoo kale qalabka la soo iibinayo يعني سيدا كو sheegay marka la sameeynay sahminta waxa la qodayaa ceelal tijaaba ceelal tijaabada shidaal ka soo baxay shidaalkaas waa shidaalka lagu leeyahay boqolkiiba 90 ayaa la qaadanaya hadaba boqolkiiba 90 ilaa intee sana ay sii jiraysaa hadaa fiiriso qodobka 12.4 si fiican u fiiri muddada heshiiskani wuxuu noqonayaa 5 sano hadii loo baahdana waxa lagu dari karaa ama extension lagu sameyn karaa 3 sano iyo 3 sano iyo 3 sano macnaheedu waxa waaye markiiba waxa lagu sii dari karaa 3 sano heshiiska sahminta waa Soomaaliya waxay qiyaar u leedahay 5 sano kadib hadii Turkiga uu soo saari waayo shidaalka inay dhahdo heshiiska intaas uu nooga eegaya yani heshiiskan dhan lagu buunbuuninayo waa 5 sano wax soconay okay si loogu daro 3 sano waxay u baahan tahay in labada dhinac mid kamid uu soo gudbisto codsi ah in lagu daro 3 sano 6 bil ka hor Turkiga tusaale wuxuu dhahay way nagu filaawaysh inaan 5 sano ku dhameeyno shidaalkan sahmintiisa 3 sano aan lagu daro dawladda Soomaaliya way diidi kartaa xaq ay u leedahay يعني 6 bil ka horna waa inuu Turkigu soo sheegto oo soo sheegto si ay uga fikirto dawladda Soomaaliya u soo baarto meeshan shidaal diila kuma hawshooda ay sheegay masaxa waka marka horta waxa lagu sheegayo oo lagu leeyahay shidaala boqolkiiba 90 la qaadanaya waa shidaalka sahminta waana shidaalka ka imaanaya ceelasha tijaabada ay la sameeyay ceelasha tijaabada anugu hadda waxa dhiila hadda madaxweynaha ala war wax dhan wada qaata waxa ka imaanaya aniga shidaal la sahminayo ceel la tijaabinayo wax ka imaanaya qaata muhiimada ugu weyn marka maxaa waaye waxa la yiraahdo productionka iyo sharingka waxa la yiraahdo yani sida saamiga loo qaybsanayo
haddaba saa u ogaatid qodobka 4.1 wuxuu xuquuq gooniya siinayaa shirkadda sahminaysa shidaalkan oo ah in heshiiska wax soo saarka iyo wadaagga la siiyo shirkadda haddii dawladdu dhaliil leedahay qodobkan lagu dhaliili karaa yacni waxa waaye in loo xiray waxa la yiraahdo saamiga hadhow marka shidaalku soo baxo oo la dhaafo baalkii abrisalka la dhaafo oo developmentiga la dhaafo productiga marka la shidaalka la soo saarayo 30 sano 20 sano shirkadda kaliya ee wax soo saarka sameynaysa oo soo saaraysa sidoo kalena saamiga qaadanaysa inay noqoto shirkadda yani shirkad Mareykan lama sii karo haddii ilaa kuwa Imaaraad lama sii karo wadanka lama sii karo yani qodob la dhihi karo waa lagu dhaliilay oo dawladda Soomaaliya waa lagu dhaliili karaa waa qodobkaas يعني waxa ogaanaysa halkan inaan wali la gelin heshiiskii fiiriya qodobkan si fiican fiiri waa qodobka xuquuqda siinaya ama guarantee rate-ka ay ku qoran tahay waa 4.1 qodobkan wuxuu sheegayaa heshiiska saami qaybsiga saamiga fiiriya marka shidaalka la qodo yani uu ku sheegaa waliba area-daas la sahmiyay shidaalka laga helo marka sahmintu dhamaato meesha shidaalka laga helo area-da shidaalka laga qodayo inay xaq u leedahay in shirkadan la siiyo waa heshiis lama dhaafana yani waxa dhow laga baqayaa markii la sahmiyo shidaalkii la ogaado dhismayaashii la dhiso ceelashii la qodo in la yiraahdo Mareykan siinay inuu soo saaro marka wali lama gaarin jaalayaal wali lama gaarin wali xilligii la qaybsanahay saamiga hadda waxa la marayaa sahmin oo kaliya marka waxa ogaataa qof aanay iga dambeeyo oo aa weydiinaysa ma jirto warqadahan waa sax heshiiskana waa sax laakiin sida dadka u dhigayaan waa qalad waxa muddaa saxaafadda Soomaalidu inaysan wax baarin ee ay wixii hebela soo qoray ama hebela oo xooga hebelo siyaasiyaha soo qoray hal wax xariiqo war saxaafadda adduunku waxay sameeyaan heshiisyada ayaga ayaa dabagala way baaraan wax saxdaan ayaga soo ogaada laakiin hebel oo siyaasiyaha wax soo qoray adna qor sharaf kuma jirto umadana in la niyad jabiyo ma dalkan Soomaaliya la yiraahdaa khayraad uu leeyahay shidaal oo soo saaranaya waana soo saaranaya abtimaan heshiiskaas waa sharci waa sax waana kii saxda la mari lahaa adiga hadda iska soo qaad hadii lagu yiraahdo sahmina lagu sameeynaya qashinka tijaabada ku sameeynayna yani shidaalka soo bixinayno 90% aan qaadana si aqrashaadkeena ugu dabarno ma diidi lahayd waa maya marka lama gaarin xilligii shidaalka Soomaaliya la qaybsala horta maba la soo saarin wali shahmintii la maraya waa 5 sano heshiiskani 5 sano soconaya ugu badnaan 3 sano lagu dari karaa استجية يا قلد لو فسرين وحقبت كدولدو أي سميان أنا ما أنت دولد الدفاع مي لكن واحد صح ده شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته